تني هو عاوة هرتا برنامج كيب أضاف فري أنا عاوة ما أضاف فري برنامج مياه أوكي برنامج كيب أضاف فري الدوينه ما هي عادي نوقف بدي بالك وأساسا ما هين تقول لي أحمد ورسان هرجع بني يا إن مركا عاوة برنامج كي أديك عنه فري ده أنو حن ربي إن أديك وريستو ده أديك أنا وريسان ربطابة أنت أديك وحن كاور رسان يا أنت فورتام ما تستمعشها فودستان بقول لي ما استعمالني أنا جنيه تصومالي ما تيجي بس صحيح ما استمعشها ما أنا أفرت أنا تدبات كي جارب أساس سايقود ده وين ده جارت سوما حتى دونالد ترامب واحد وعرة توا خلط هاي واحد بعاه سوي من سته واحد بعكوب بحال كم كاركي واتي تحليل ساي يلا دتك عيسى قرن ما ين دك قادنا يعني ما ندوي تمر بان علابتي xirxirtay inaan baxaan doonay waa sii socotay waa sii socday badee de markii la guuleystay Donald Trump guuleystay tanyar Trump wax baa de marka waxa ay waa baxay marka adigaan ku weydiinaya marka doorashadan dhacday waa ku guuleystay asaga ku guuleystay Donald Trump marka aad fiirisid jaaliyada Soomaalidu والول يولع فربضا برا سود عياسين بس سود عياسين ومال والبا تكتد وي ما عرفتي ان سناب شات دي marka fiirisid Facebook marka daawatid اول مسؤول كشنت waan maqli jiray laakiin waxa ma Donald Trump ka shaqanta ha bal adigu iga waran marka maadaama adigu aad tahay nin bulshada aad u jeclo majaajilista weyn aad tahay barnaamijyo ma jiraan adigu aad ka sameysay marka hawlahaasi horta ninkan barnaamij inaan isku doondoonto ma rabin oo ninkan adiga kala way qaadaya moogta arinku ma haya meeshaan أساسا يرى هرتوا بقصي فورتامي وحيرة ولا عرّي هبين كيس الله ما قاعد محترمه بقصي أنتي بقى وأقول عقرن مايه إسلام تغير سيب بود وديا بس عاجن على سي عرّس يقول أنت أنا كجرسينة يا سيريال كلا سي قحية وديا بس ده سيريال لما عناين هذا هرتوا حويان ده كان هرتوا وحيلا أساسا وجيسين ما يدك صار ملايين يوم بس لكن حق الصومالي ده مركز نقطة يد حيابي الرأي فدك عنك يد الثلاجة دي ما حلا لقى يوم كل صار أفريقيا لوجي ماده تذكر مرة يجوا كلهم من يوم يجوا قبون كاسي سعدا وحويا وحيابي ويسبدل يعني حتى وحويا وحارن وديدين معونيس فتودي ده صنع سكيس تصنع فرص مرق مال ما تقن هذه مرق وينها ما شاد صنع أنت بقول عبد الناس وحويا فرتادو كبد بعدي لكن صومالي بدنا ويس كجا عضيس صوبت يجوا عضيسنا ونشيك دونا قدال لكنse waxaan aad uga xumahay in de reesiidar iyagu ay kala kici doonaan oo xagee aadayaan marka waxa weeyaan de guryaha bilaash way isaga jiraan marka way idin dhamaatay reesiidar goodbye no more housing iyo section area shaqada ka bax xafada on magaca on la baxnay iyo buulkayga dumay islaam walba guri ku galaysaa wa shaqada ninka danyar Trump la ma yaqaan shaqadaas waad iskaga taw adeer bacdaada waad sii qaadanaysaa waad garatay Soomaa marka adiga waxaan ku weydiin rabay gurigan laftigiisa section area ba ku degantaan maqashay may gurigan Donald Trump intuu soo socdaan ogaayo mar horaan ka gaashay wixii dhammaan baan qadimaday guri aad u qurux ma sha Allah dhinacana studio buu ka yahay dhinacana waa laga ka deganay waxa weeyaan liibaanow Soomaalidan oo hay'ad degan iyagu aad bay ugu codeeyeen maqashaan maanaya had laakiin Soomaalidu oo codeysay Soomaalidu oo hayo Soomaalida Minnesota maxay tahay farq u dhaxaysa isku Soomaali Soomaaliya horta timalaha ka Soomaaliba ma aha way sheegtaan waa dadka native kala sheegan maanaya Soomaalidu ka kaaday iyagu qaqaawanan waxa weeyaan Soomaalidina horta waa idinka aad baa idin cambaareenaya saad maqashaan maanaya racing group dad badan baa u codeeyay daba orday ninka gartay horta ninka dhakada cad liibaanow waxna uu ku fiican yahay waxna uu ku xun yahay bal noo sheeg wuxuu ku fiican dadku say u ogaadaan bal horta ana kaaga waramaya caaw liibaanow ma Soomaalidu ama hal xiraalayaal Soomaaliya ama kalmadii xigmadaysnaa Soomaalida hore aadiya ma maqli jirto waraabaha muu soo yiraahda iyo kan aamusan mid keeba ku daran لكن مو سوي ده واد مقليسا واد أركتها ويد ورابها واد أرنا سموكتها exactly دبل نين كان وانيس كسوق قيلنا يا كلوا ونكديلي دير بانديسي فورستان بيبان كا قوسن وحي با وكو شيغay aad de ma ku qarinba exactly walqa waanina meesha dhigataba aad iska ilaalin karto wuxuu soo wado aad laakiin dadkan kale ee maaratay hoos ordaya iyagu haday noqoto baadhiga kale ama sida dadkan xisbiga kale iyagu waxay rabaan adduunka dhan inay xurto ku haystaan ninkana wuxuu rabaa inuu wadankiisa oo kaliya ka adkaado wada xuduudkiisa xidho nin baa lagu qabsanaya xuduudkaygan xidho on gurigayga xidho nin baa lagu qabsanaya deeran ka dhigto gurigayga dhan ku wareejiyo may soo maaha ninkan wuxuu ka cararayaa hadda wax dhibaatooyin jira oo dadka iska soo gala wadanka waa run dhibaatooyin way geystaan shaqooyinka way xadaan oo shaqo walba $5 ku galaya halku ninkii cadaanka $10 ku shaqeyn jiray ninkii iska soo gala wadanka abaal buu ku qabashan doonaa marka adigu waad ku raacsan tahay marka inuu dhinacan kaga raacsanaan ka wadaa macnaha waxyaabahan kaga raacsanay ninkan gartay marka waxa weeyaan ninkan horta wadan buu ka dhigaya wadan jira wadankii wadan kale iska tagayo oo saliid iska soo xadaya iyo waxaas ma jirto ninkan ma yaqaan shaqadaas inkastoo ganacsadii
maanta dad $2 siiso tiraado Alaska gantaal ku dhufo ku dhufanaya wad ganacsatada shaqadaas isagu wuxuu yaadaba intaas wuxuu u iimaan laayay soo moogid laakiin sidiisa kale danyar taraw salaamaha ku leeyahay iyo timaha geera bulbusha laga sameeyay ayga dabiis bal ka waran maalintii halkan Minnesota intuu soo istaagay kuma soo istaagay oo elborku intuu yimid waati la ciirsadan ma maqlay la hadlay jaaliyada Soomaalida oo yiri iyo oday hadalada ama oday wuxuu yiri ma dadkan maxaa meesha keenay iyo hadaladaasi aflagaadada sheekooyinka akhrinaya waan maqlay de waxa weeyaan horta waxaana keenay waan soo qaxnay adba waxa ku keenay islaantaadaba waxa keenay moogta way soo qaxday islaantaada in kalaabiyada ka shaqeyn jirtay waan iska ognay taayinayada waaga way iska caadi horta nin soo qaxay nin soo qaxay dib ma qabo oo dhibaato ma leh yar mooyaane bal waxaan rabaa waxa tahay boqor khaaba tahay umad dhanba imika waan iska bedelay meen ku sheeg horta haye goorma bedeshay waaryaar idin kood maqlaysan ninkii ugu yeedhan madaxan kab kala dhici goorma bedeshay boqor Trump dhahday marka Trump waa magac ka talac ku yeelay ka ku dhishdan lahay shilka ka soo jiidi baysid ninkaas waxa weeyaan magac kale aanu bedelay page ka tagi doontaa page ka arki doontaan halkan dii ka sheegi maayo bad sheegday halka ka sheeg liibaan show ka sheegday horta de horta magacaan idin sheegaya magac iska yar adag kelmaduna waa kelmad laba kelmadood wax raacsan waxaa raacsan laba kelmadood oo af Soomaaliga ciyaalka suuqa ah sayid khalli wali baa raacsan ha u qaadan marka waxyaabo kale sayid khalli wali waa laba la waa khalli iyo wali niyo boqor khaakhaan ka ma ma khaakhaan ka naga mid kala khaakhaan iyo wax la baxbaxay wadad baa ka kala magacii baan ku carray ha boqor khaakh wii ahaa dambe caruurtaada weeyadaniyo kuwa caruurtaada soo batay de caruur baan u baahnayn ba mid baan dirq la silxsanay mid dhibaaba kan doorartaasuna marka qaybta Ingiriiska marka qaybta Ingiriiska ka hadalna Soomaha Dorta, and first of all, it's very nice to be in the United States. It's very peaceful, very full stamps, very SSI. But just so you know, this country is not yours. You know, whoever controls this country is not your business. You just live here. You know, you fought. You don't even have the right to choose. Exactly. You see, and it's very amazing. You know, that's you get that كلمة سويت على كذا كاسية. كلمة tremendous بيستعمل موقت. It's that's very tremendous, very amazing to be here today. مركا نيجي كلمة صورت عاد بيستعمل كذا. نيجي كلمة عاد بيجوا هذا afkiisa waxa moodabay ay inuu de ooman yahay moodaba soo afka kala qaad mana caayo Donald Trump imika way ku xanaaq nina aad baan ku taageeraa manaha de lama ma taageero waxa ka dhadhicinaya Donald Trump hade xanaaq ninka Donald Trump Soomaaligu islaantiisa kulli garanaysa Soomaaligu si fiican buu fahmaa ya war uu fahmaya kulli war ma ku bala jooga ree oo haya la joogo waardiyaalo aba ya marka waxa weeyaan waxaad u calaacashaan ma jirto waxaad u qeylqeylidaan ma jirto ninkan wadankiisu maamulanaya waa nin gurigiisa yidhi saan doonaan ka yeelanaya macnaha dadkii 70% ayaa u codeeyay Soomaa de 70% wadanka u codeeyeen waxaad adu ka tiraahdo waaba khalad yaa adigu dhageysanayaba laakiin electoral vote ku badiyay laakiin hadaad fiirisid shacabka kale shacabka niyo shacabka de sidoo ku soo dhoofi kara haduu shacabka intaas duna shacabka badankiisu taageeray hada shacabka qaybtii mudaharaadey ma ahane qaybta aamusan way taageereen soo muugi marka qaybta mudaharaadey qaybta aamusan yama badan marka waxa malaynayaa dadka badankoodu way u baahnayeen ninkan aad buu marka barnaamijkii gabagabadii aan soo gaarnay adigu marka waxaan ka iloobay dadka badankoodu waxa u taageereen iyo dadka soo qaxay dadkeena ka soo qaatay su'aalahan Soomaalida waxaan jecelnahay inaan dumarka cagta hoostiisa ku yarhayno dhulkeena taas been ma de waa Mareykan baa la yimid hayda gabadhu dumarku waa qaybta labaad Soomaa waa gartay waa run ha halkan marka timaadana maxay ahayd gabadha ugu horeysa ayga ku sixiga carruurtii waxba ku sixiga marka wixii hada ragii baa horeeyay ragii hada horeeyay aka dumaro raali hada cagta hoostiisa galmayno horta shaqada laba naaqsan salaakiin de ragii aad dibadda saqda xawso tuuraysanad booliska ugu yeedhisan ma jirto marka ma gran laftigeed way maqlaysaa shaqadii ma jirto marka anu waxa la aad baan ugu taageeray gabagabadii way dhaamaa gabadhaas waxaan halkan ka gaarsiinayaa nin kasta oo muslina cid doontaa khaasatan dadka Soomaaliga fahmaya hadda waqti xadirkan daawanaya hadii uu codkaagu u dhacay Hillary Clinton ilaahayna quraankiisa ku yiri dumarku kuma maamuli karaan aad sababta ugu codayso waa xaaraan Soomaa midba beentay ba waxa cid waliba waad ogtahay adigu bayna xaaraan tahay adna waad u codayso gabadh baad dooratay marka laftigeeda halka waxa ku jirta
faawal baa ku jirta tuushkaad carartay isqabo ayaan ku leeyahay codkaagana dib uga soo noqo sababta codkaad ridaa hadduu qof u dhinto adaa u maqan aakhriya adduunbadee kugu maqan sooma marka maxaad noogu soo gabagabaynaysaa marka masanaa soo gabagabaynaya gabagabadii barnaamijkeenuna waxay noqon doontaa baaraadayn